Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso ku soo dhawaada sheekadii Jariska Xoorkii ilaa qaybteedii 10aad. qaybta 9aad sheekada waxay inoo joogtay cagta saareen iyaga oo si dhiiran uga hortagaya duufaanta dhimbilaha barafka ah kicinayso. qaybta 10aad sheekada waxay ku bilaabmaysaa buur yar oo baraf ah oo iyaga iyo badda kala qarinaysay ayay koreen, waxayna kadib arkeen baddii oo markabkiina meel xeebta u dhow yaallo. muuqaalkaasi wuxuu ku dhaliyey farxad iyo xamaasad. ilbiriqsi kadibna waxay gaareen baddii oo markabkii ayay ag tageen. markabkuna wuxuu ahaa maraakiibta shixmadda gurta ee waaweyn, hase ahaatee wuxuu ahaa markab degay oo mar hore galay barafka. Jariska Xooradii yaryaraay markay markabkii oo halkoo jambiga barafka la galay laga riixi karaynin ayay arkeen. kadibna waxa wajigoodii ka muuqatay guul darro oo arrintii way ka argagaxeen. Anwar baase intuu dhammaantood indhaha kaga dhacay ku qeyliyey, wuxuuna yidhi, war habaqina, mar haddaynu markabkii soo gaarnay, shaki la'aan si unbaa wax inanfacayo aynu ugu helaynaa. markaasoo kadib ku wareega markabkii oo dhan walba maray ilaa oo ugu dambaystii helay daaqad jaban. halkiibuu dabadeed galay, saaxiibadiina way ka dabagaleen. hase yeeshee yaab baa Allah u keenay markay markabkii gudihiisii arkeen, waayo alaabtii markabka dhex oo waxay arkeen aad moodo in carruurtu ku ciyaartay oo wax weliba dhulka daadsan yahay. markaasuu Siraaj yidhi, aniga sidaan ku aqaano naaquudayaasha maraakiibta sinaba uguma suurtowdo naaquudiye in markabkiisu oo sidaan isku dhex yaalo oo ka tago. Jawaad yare ayaa ka daba qaatay oo hadalkii yidhi, haa, oo waxaan ninaba la weydiinayn in ay iskiimowgu yihiin kuwa sidaan wax yeelay, waxaana weliba cad in ay waxaan wada daadiyeen intii kalena qaateen. cali baa isagana inta uu wax fahmay yidhi, allaylehe, waa runtii waxaan u malaynayaa waxay la argagaxeen markaynu markabka sheegnay in ay sidan tahay, waayo waxay ka baqeen in aynu sirta kashifno oo aynu tuugnimadooda soo bandhigno. waxaa cad inay ka faa'iidaysteen markii markabku xeebta ku soo xirtay oo ay xadeen, iyaga oo ogsoon in ay ciqaabteedu tahay xarig. qoladii markabku lahaydna aanay marnaba ugu dhaafayn dembiga ay galeen. Anwar intay saaxiibadii waxaasoo hadal ah isdhaafsanayeen wuxuu ka howlanay doondoonka shay isaga aad ugu muhiimsan, isaga oo saaxiibadii aanay garan wuxuu raadinayo. markuu shaygii indhaha ku dhuftay ayuu qaylo kaga dhacay, wuxuuna yidhi, waan helay, waa kana. saaxiibadii ayaa kusoo kala orday xaggiisii, waaba Anwar oo dhammanada haysto, haayana raadiyo yar oo ah nooca maraakiibta iyo dayuuradaha ay ku dirtaan marka ay go'doon galaan iyo dekadaha ay u soo dhow yihiin. mar allaala markii oo Siraaj arkay raadiyoogii ayuuba farxad kala dilaacay, kuna qayliyey, haddaan nabad galnay, waxaynu wacaynaa madaarka inoogu dhow oo aynu weydiisanaynaa diyaarad gurmad ah. Anwar baa yidhi, waan hubay in kollay markabka laga helayo raadiyo, sidaa darteedna waxaan idinku soo dhiiriyey in aynu markabka wax kasta haddayna qabsadaan soo aadno. nasiib wanaagse badowdan iskiimowga ihi way macno garan waayeen raadiyowga, markaa way iskaga tageen iyaga oo aan waxba yeelin. iminkana ina mariya xaggii reerkaan aadne intaanay colkii qaflad inugu qaban. markaana duufaantii ayaa xasiloonaatay, fadkii madoobaayna woo ba'ay oo arlaadii baa iftiin wada gaaray. yaryarkiina iyaga oo midba midka kale uba garguuranayo ayay ka soo daadegeen daaqadii markabka oo u kaceen xaggii reerka. intaanay buurtii yarayd oo barafka ahayd ka dhaadhicin ayaaba naajoog oo dhimbilo cara ahi indhihiisa ka duulayaan, gadaashiisana ay iskiimowgii oo iyana wada karsan safan yihiin. qunyar ayaa mid walba oo yaryarkii ka mid ah baa dhidid qabow oo baqdin ah ka dareeray markay arkeen masiibadan hortaagan. wax yar markay aamusnaayeen, intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 10aad ee sheekadii Jariska Xoorkii yaraay.